doorashada guddoonka baarlamaanka dawlad goboleedka galmudug ayaa maanta lagu qabtay magaalada Dhuusamareeb waxaana uu tartamayay 7 musharax iyadoona 3 kamid ah gudoomiyaha baarlamaanka ay u tartamayeen isla markaana markii la bilaabay doorashada mid kamid ah uu isxasilay iyadoona 3 musharax ee u tartamaysay ay kala ahaayeen Maxamed Nuur Gacal Cabdinaasir Aadan Cusmaan iyo Cabdullaahi Axmed Cali Sow Cabdullaahi Axmed Cali Sow ayaa inta doorashadu ay soo bilaabeen waxa uu u tanaasulay musharaxiinta kale iyadoona la gudagalay cod bixinta waxaana kooramka fadhiyay oo codaynta dhiibanayay ama codkooda dhiibanayay 89 ka mudane ee baarlamaanka dawlad goboleedka galmudug natiijada ayaa markii codayntu soo dhamaatay waxa ay noqotay Cabdinaasir Aadan Cusmaan waxa uu helay 34 cod halka Dr. Maxamed Nuur Gacal uu helay 54 cod sida guddigu sheegeen cod kamid ah ayaa xumaaday sidaasina waxa gudoomiyaha baarlamaanka dawlad goboleedka galmudug ku noqday Dr. Maxamed Nuur Gacal baanada codaysay waa 89 sidaana codadkii loo kala helay Cabdinaasir Aadan Cusmaan waxa uu helay 34 cod Dr. Maxamed Nuur Gacalna waxa uu helay 54 cod hal codna waa xumaad sidaas daraadeed gudoomiyaha dawlad goboleedka galmudug oo sharciga waa baarlamaanka waa Maxamed Nuur Gacal wabillahi barakaatuh intaasi kadib musharaxa laga guuleystay ayaa waxa uu qaatay khudbadda waxa uu u hambaliyay Dr. Maxamed Nuur Gacal oo noqday gudoomiyaha baarlamaanka dawlad goboleedka galmudug marraba inaan aad ugu fogaado kelmadii goobta ku habooneed waxaa dhihi doona gudoomiyaha la doortay waxaan rabaa kaliya inaan ku soo koobo hambaliyo mudana gudoomiye waxaana ballan qaadayaa inaan kula shaqayn doono guddoonka baarlamaanka gudihiisa insha Allah khudbad kooban ayaa Maxamed Nuur Gacal gudoomiyaha baarlamaanka galmudug ee cusub halkaasi uu ka soo jeeday iyadoona ugu dambeyn la dhaariyay gudoomiyaha ku meel gaarka ahay ee baarlamaanka galmudug guddiga doorashooyinka bahda saxaafadda ciidamadayna qalabka sida heer federaal iyo heer dawlad goboleed marti sharafka ka soo qayb galay munaasabadan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ugu horeyn waxaan u mahad celinayaa madaxda bismillaahi raxmaani raxiim bismillaahi raxmaani raxiim waxaan ku dhaaranayaa magaca ilaahay inaan xilkayga u gudanayo si daacad ah oo danta diinta dadka iyo dalka ku jirto dhowrayana dastuurka dawlad goboleedka galmudug iyo tan qaranka baarlamaanka galmudug oo 89 ka kooban ayaa maanta halkani doorasho ku qabtay iyadoona la filayo sidoo kale in ay dhacdo isla maanta doorashada gudoomiyaha koowaad ee ku-xigeenka baarlamaanka galmudug iyo gudoomiyaha ku-xigeenka labaad oo ay u tartamayaan 4 musharax kiiba 2 musharax Maxamed Cabdi Maxamed warbaahinta qaranka Dhuusamareeb